madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta xadhiga ka jaray 12 kiiloomitir ee ugu horeeyay ee jidka Berbera Corridor oo isku xiri doona magaalada Marsada leh ee Berbera iyo magaalo xuduudeed ee Wajaale. wadadan waxaa dhismaheeda maalgelinaya dawladda Imaaraadka Carabta waxaana heshiiskeeda saxay xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. munaasabadii xadhiga lagaga jaray 12 kiiloomitir ee ugu horeeyay ee wadadan ayaa waxa hadal ka jeediyay injineerka shirkadda dhisisa wadadan oo Imaaraadka Carabta laga leeyahay wasiirka gaadiidka mudane Cabdulaahi Abakur iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana ay ka hadleen ahmiyadda ay wadadan leedahay iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa. I am Tahir, chief surveyor from the NBHH, and now today we are going to open the 12-kilometer road. Our program was that we will open the 20-kilometer for you today, but unfortunately there is some problems, the rain, and before the rain there is some companies, local companies, and they not deliver the work very well. So after that we took the charge from them and we did the work ourselves. That's why we come late, and next stage inshallah we will do fast, because here we are also facing the problem because we bring the material from the Berbera side, and when we will close to the Berbera side, after that we can deliver soon. يا دمان وفتيجا ومدحونه هجامنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحونا ما تحلو شغنا إن نفرنا قيب كم إذا مشروع بربرة كوريدور والله 12 كيلومتر سدو شيء إنجنير داهر هذا نير شرحنا مدحونا وضدنا واحد كده وانت وددنا هراء لسان كهراء وحال لحتم بوها تان إن شاء الله وحنا قندون تا أفرتن تن يوحي كبدنا إني حمشوا سيدو كلا ولا بلاري وها بالعيده هore 6.5 imikana waxa weeyaan marka lagu daro macashol risk waa 11.3 balciigu marka runtii waxaan rajeynaynaa inaan insha Allah ay noo soo bixi doonto mustaqbalka dhow wado aynu ku raysan doono qoduu sheegay injineerku runtii waxa jira caqabadaha jiray waxa jeclaayeen 20 kiiloomitir inay furaan laakiin duruufaha ka hor yimid oo kooy ka tahay roobka laba ka tahay material lagu dhisayo halkan inta ugu badan waxa laga soo qaadaa inta inoogu dhowda 90 kiiloomitir jirto Dacarburuq iyo Berberaagteeda laga soo qaadaa dhagaxa lagu dhisaa maaha dhagaxii cadaynu naqaanay waa basalt amba iyo gabro taas markaa waxay khasbaysaa in masaafo dheer alaabtiina la soo qaado
sidoo kale wuxuu sheegay inay xoogaa xaq caqabada kaga timid local contractorskii Somaliland iyo material ko inta badan qalabka aan u diyaarsanay markii dambe ay keeneen marka runtii waxaan rajeynaynaa imka caqabadaha badankooda waa la xalilay waxa kale inoo soo gudbiyeen bishii labaad programkooda markii hore wuxuu ahaa May 2021 bisha shanaad inay shaqadan dhamaato duruufaha awadeed 4 bilood bay dib ugu dareen bishan September 2021 bisha sagaalaad ay qorshuhu yahay inuu dhamaado ilaa waxaan ka rajeynaynaa in hawshaasi inoo fusho inaga xilkayna sarwad dadaalun waxaan jecelahay maanta laga bilaabo 12 kilomitir waxay u furan yihiin in la isticmaalo kolba waxaan jecelahay waxaan qorshuhu ahaa markii hore ilaa Obarqad la Hargeysa in la furo Obarqad Dacarbulqna mar laga dhigo Dacarbulqii berberena mar laga dhigo laakiin nasiib darro duruufaati yimid awadeed ayaa dhilaygaas ku yimid waxaan jecelahay insha Allah inaan ka gaashaamano waxaan rajeynayaa maanta mashaakilka ay sheegeen badankooda inaan xalinay waa kulli waxaan jecelahay inta aynu ku soo gabagabeeyo adigana kugu soo dhaweeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa mahadle wasaaraddan shidadka iyo gaadiidka aad baan ugu mahadnaqaynaa waana bogaadinaynaa wadadan iyo taa ceer gaabada oo la wado muhiim ah way gacanta ku hayaan dadaal badan iyo shaqadii barteen iyo isla qabsi baa ka muuqda wadooyin badan oo kalena way idin hareen dalka wadooyinkiisu waa badan yihiin dalkeenuna wuxuu u qaybsan yahay guban iyo oogo iyo xeeb mid waliba cimilo gaar ay leedahay caalamkan ilbaxay ee elektroniga ku shaqaynayana gaadiidka iyo isgaarsiintu waa ka kow nolosha marka waxaynu ka mid nahay dalalka aad iyo aad ugu dambeeya xagga wadooyinka iyo communicationka xilka idin saarina waxa weeye inaad hawshiina la bilaabtaan oo dedejisaan intaa gacanta ku haysaan kana fikirtaanta ka badan ee idin sugaysa ee la doonayo in hore loo qabto marka waxaanu aad iyo aad ku mahadnaqaynaa hawsha soo qabateen waxaanu u mahadnaqaynaa qoladan imaaraadka inaga caawisay oo aynu iyagana ka codsanayna hawsha noo dedejiyaan wadadan way jiitantay ilaa bilowgeedii mashruucii kolba meel dhowr sano maraysaa marka waxaan iyagana ka codsanayaa iyagoo ku mahadsan kaalmada ay naga caawiyeen jidadka iyo kuwa kalaba inay hawsha dedejiyaan wasaarad ahaan mar labadaba idin bogaadinayna hambalyo imika waxaa ka gudubtay waktigii tababarra isla qabsashada shaqa aqoonta duruufaha waxaa laydinka rabaa wax soo saar xoog leh ilaa labada waddo hore u dhammaysaan sanadka dambe insha allah dhexdiisa kuwii kala bilowdaan aad sugaayay Mororkiyo dhaqaalaha dadna waxay iskeenaan karti iyo dadaalkood markay kaalin geliyaan konaha berbere iyo gambarka wajaalay isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa konaha berbere iyo gambarka wajaalay isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa isu keenaysaayo wayna kaafiyeysaa waa iskaashi noloshii haddii loo kaltamaxo awood waa karnaa tamar kalkeenina dhammayne yaynaanu kala tegin yaynaanu kala tegin kalkeenina dhammayne yaynaanu kala tegin yaynaanu kala tegin cabdiraxiin muule ismaaciil shabakadda wararka Ilays News magaalada Hargeysa